Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Maanta waxaan doonayaa inaan sharxo sheekada muuqaal xiiso badan oo loo yaqaan Heist of the Century ama tuuganimadii qarniga. Fernando Araujo wuxuu ku nool yahay nolol hufan isagoona ah macalinka ciyaarta karateega. Si kastaba ha ahaatee kuma qanacsana oo wuxuu u malaynayaa inuu weli raadinayo nolol wanaagsan. Habeenada ka mid ah isagoo ku soo laabanaya guriga ayuu istaagay suu sigaar u cabo iyadoo uu roob u da'ayo si xoog leh. Kadib markuu Fernando dhammaysto sigaarka ayuu tuurayaa kaasoo si tartiiba ugu dhacay bulaacad u dhow bangiga Rio. Cajiib, wuxuu hoos ugu dhaadhacay bulaacadda oo si lama filaan ah fikrad waalan ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday. Maalinta xigta Fernando wuxuu aadayaa inuu la kulmo saaxiibkiis injineerka madaniga ah ee Sebastian wuxuuna u soo jeediyey fikradda dhicidda bangiga. Waxaa soo baxday in Sebastian uu dhaqaale la'aan la halgamayo sidaas darteed wuu ka helay fikradda, laakiin wuxuu qiyaasayaa in qorshuhu u baahan doono baabuur, qalab iyo lacag badan. Sidaas darteed Fernando wuxuu bilaabay inuu raadiyo maalgeliyo wuxuuna la kulmayaa saaxiibkiis kale ee lagu magacaabo De Bauza. Nasiib daro isagana sidoo kale ma hayo lacag ku filan, sidaas darteed wuxuu u soo jeedinayaa Fernando inuu u tago saaxiibkiisii tuuga ahaa ee Mario. Muuqaalka markaas waxaan ku aragnaa Mario oo jabsaday xafiis habeenkii oo si aan macquul ahayn lacag uga xaday meel khasnad ah. Xitaa uma muuqdo inuu welwelsan yahay intuu hawsha ku jiray, taasoo muujinaysa in tuuganimada yar ee kuwan oo kale ay isaga u fudud yihiin. Maalintii xigtay Fernando wuxuu kula kulmay Mario meel kafeteeri ah wuxuuna u sharaxay fikradiisa. Mario markii hore kama helin, laakiin Fernando ayaa ku qanciyey isagoo u sheegay in haddii ay ku guulaystaan qorshaha uusan weligii dib dambe wax u dhici doonin. Kadib Fernando wuxuu u kaxaynayaa isla goobtaas oo hoos u gelinayaa cajalad cabir godka ku yaala bangiga hortiisa. Waxa kale oo uu Mario gelinayaa bulaacadda si uu u helo gunta cajaladda. Xisaabinta kadib Fernando wuxuu ku dhawaaqay inay 18 mitir u jiraan inay noqdaan milyaneer. Muuqaalka soo socda, Fernando, Mario iyo De Bauza ayaa isu imanaya si ay uga wada hadlaan dhaca. Waxa ay qorsheynayaan inay tunnel ka qodaan bangiga, laakiin dhammaan qolalka gudaha waxay leeyihiin qalab dareemaya dhaqdhaqaaqa dadka. Si kastaba ha ahaatee Fernando ayaa sheegay in qalabka uusan ogaan dhaqdhaqaaqa balse kaliya uu aqoonsado isbedelada heerkulka. Sidaas darteed wuxuu boorsada hurdada ka sameeyey dhar kaasoo ka caawin kara inay qariyaan heerkulka jirkooda. Hadda dhibka kaliya ayaa ah inuusan garanayn sida loo furo khasnadda bangiga. Markaa maalinta xigta kooxdu waxay go'aansatay inay baarto wax badan. Fernando wuxuu sawiro ka qaadayaa barta baakinka bangiga ee ku taala dhismaha gadaashiisa ka hor intuusan gudaha u gelin Sebastian. Midka dambe wuxuu iska dhigayaa inuu akoon ka furanayo halka Fernando uu sawiro ka qaadayo qaybta fadhiga. Nasiib daro markiiba waa la qabtay oo waardiyihii ayaa yimid. Fernando ayaa si degdeg ah isugu dayay inuu baxo laakiin nabad sugidda ayaa qabatay oo u kaxaysay qolka hoose si su'aalo loo weydiiyo. Waxaa la yaab leh tani waxay ahayd qayb ka mid ah qorshaha. Fernando wuxuu u adeegsanayaa fursaddan inuu si dhow u eego qolka khasnadda lacag dhigashada. Dhanka kale ciidamada ayaa baaraya dhammaan alaabtiisa oo ay ku jirto kaamarada, balse ma aysan helin wax caddayn ah oo si cagajid ah ayay ku fasaxeen. Waxaa markaa soo baxday in Fernando uu ku guulaystay inuu kaamarada ka saaro memory card-ka, balse sababo jiro awgood ilaaladu kama shakin. Kadib Fernando iyo Sebastian waxay dejiyeen qorshaha dabaqa bangiga iyagoo isticmaalaya sawirada iyo xasuustooda. Fernando ayaa markaa dejiyey qorshe uu bangiga uga soo galo qolka yar. Marka xigta waxay cabirayaan masaafada u dhaxaysa godka iyo bangiga iyagoo isticmaalaya baaskiil oo xisaabinaya inta jeer uu taayir ku wareegay. Maalinta xigta Fernando wuxuu isticmaalayaa aqoontiisa cabiraadda si uu u xisaabiyo xagasha ay tahay inay ka qodaan godka si ay u gaaraan bangiga. Waxa kale oo la sheegay in lacagta kooxdu xado ay tahay mid caymis ah, sidaas darteed cid aan ka ahayn bangiga ma jiri doonto oo khasaaraysa iyaga awadood. Habeenkii dambe Fernando iyo kuwa kale waxay galeen bulaacadda waxayna bilaabeen inay qodaan tunnelka. Maalintii xigtay waxay shaqaalaysiiyeen nin kale oo la yiraahdo Alberto kaasoo lagu wado inuu ka shaqayn doono kaxaynta baabuurta. Fernando iyo kooxda ayaan weli helin qaab ay ku furaan 400 oo khasnadood. Marka hore waxay ku fikireen inay isticmaalaan habka qarxinta, laakiin waxay ku qaadanaysaa 1 daqiiqo iyo bar khasnad kasta, taasoo ah 7 saacadood wadar ahaan. Sidaas darteed Fernando wuxuu soo jeedinayaa inuu khasnad ka kiristo laanta kale ee bangiga oo uu si dhow u barto. Maalinta xigta Mario wuxuu aadayaa laan kale oo isla bangiga ah oo uu kiraysanayaa khasnad. Inta uu furiyay wuxuu si aad ah u eegayaa qufulka. Marka xigta Mario iyo saaxiibkiis waxay xadayaan oo ay ku sugayaan Alberto meel ka baxsan gurigiisa. Wax yar kadib waxaa u yimid booliis. Labada nin way argagaxeen iyagoo u malaynaya in la qaban doono, laakiin nasiib wanaag Alberto iyo xaaskiisa ayaa yimid oo u sheegay sarkaalka inay saaxiibo yihiin. Kooxdu waxay sii wadanayaan qodista tunnelka.
maalin maalmaha ka mid ah ayay la kulmayaan shil oo ay jebinayaan mashiinka. Fernando ayaa iska fogeeyey dhacdada wuxuuna qorsheynayaa inuu soo iibsado mashiin cusub, balse tani waxay ka caraysiisay Mario maadaama uu horay lacag badan ugu bixiyey mashruucan. Habeenka xiga Fernando wuxuu booqday saaxiibtiis waxayna si wada jir ah u eegayaan xidigaha. Waxay ka sheekaysanayaan sida ay u eegayaan waayihii hore ee xidigaha iyadoo iftiinku uu sanado ku qaadanayo inuu dhulka soo gaaro. Waxaan u malaynaynaa inay jiraan laakiin way tageen. Tani waxay si lama filaan ah u siinaysaa Fernando fikrad wuxuuna isla markiiba aadayaa guriga Mario. Fernando ayaa u sheegay inuu helay xalka. Wuxuu sheegay in bangiga si fiican loo ilaaliyo marka uu furan yahay iyo marka uu xiran yahayba, balse ay kala duwan yihiin. Bangigu wuxuu leeyahay tilaabooyin ilaalin oo wanaagsan si looga hortago xatooyada lacagta caddaanka ah iyo borotokool wanaagsan si looga fogaado dhaca tunnelka. Si kastaba ha ahaatee ma haystaan qiyaas ay kaga hortagayaan inay labadooduba isku mar dhacaan. Fernando wuxuu qorsheynayaa inuu bangiga ka soo galo xagga hore inta lagu guda jiro saacadaha shaqada marka uu qolka khasnada uu furan yahay. Sidaas darteed isagoo iska ilaalinaya qayladhaanta iyo dareemayaasha dhaqdhaqaaqa. Tani waxay siin doontaa booliiska aragti ah inay yihiin tuugo iska sahlan oo raadinaya lacag caddaan ah. Fernando wuxuu rabaa inuu qof walba rumaysto inay qorsheynayaan inay ka baxaan albaabka hore si aysan booliiska xitaa uga shakin baxsashada tunnelka. Markii uu dhageystay qorshaha oo dhan, Mario aad ayuu u farxay oo gebi ahaanba wuu jeclaaday fikradda. Muuqaalka kadib wuxuu u wareegayaa maalintii bangiga la dhici lahaa. Qof kasta wuxuu faraha ku dhegsanayaa koolada faraha si uu u qariyo aqoonsiga farihiisa. Sebastian wuxuu aadayaa bulaacada wuxuuna galay gudaha si uu shaqadiisa u qabsado, halka Fernando iyo kuwa kale ay soo galeen bangiga iyagoo isqarinaya ka hor intaysan xiran maaskiyo. Waxyar kadib Mario iyo Dibouza ayaa u dhaqaaqay dabaqa koowaad halka Fernando iyo Alberto ay la wareegeen dabaqa hoose. Isla markaana waxay la soo baxeen hubkii oo ay ku amreen qof walba inuu dhulka seexdo. Waardiye ayaa arkaya oo ka soo baxaya qolka CCTV oo isla markiiba wargeliyey booliiska. Kadib waxaa soo baxday in Fernando uu ka dhageysanayo isgaarsiinta qalabkiisa walkie-talkie. Mario ayaa ku amray khasnajiga inuu lacagta ku shubo boorso, halka Alberto uu aadayo si uu u xiro albaabka baakinka baabuurta. Booliiska ayaa ugu dambeyntii yimid banaanka oo arkay arrintan. Fernando ayaa qof rayid ah ku qabtay qoriga. Dabadeed wuxuu ugu hanjabay inuu dili doono ninka haddii ay booliisku isku dayaan inay xoog ku soo galaan bangiga. Intaas kadib Fernando ayaa dib ugu soo laabtay gudaha wuxuuna ku wargeliyey saaxiibadiisii in wejigii koowaad la soo gabagabeeyey. Isla markii Mario uu maqlay hadalkaas wuxuu qori ku qabtay qof dumar ah oo uu ku amray waardiyihii qolka CCTV-ga inuu isa soo dhiibo. Waardiyihii ayaa si cagajiid ah u ogolaaday oo Mario ayaa kala wareegaya bastooladiisa iyo telefoonkiisa gacanta ka hor intuusan dibadda u sii dayn. Marka xigta kooxdu waxay istaajinaysaa dhammaan kaamaradaha bangiga. Fernando wuxuu aaday qolka yar wuxuuna dhaqaajiyey armaajo. Dhanka kale Sebastian wuxuu jebinayaa derbiga oo wuxuu tunnelka ka soo galayaa bangiga. Kadib labaduba waxay baabuurkooda ku soo qaadanayaan xoogaa qalab ah. Waxay aadeen dhanka khasnada oo waxay bilaabeen inay xirxiraan mashiinka. Muuqaalka ayaa markaa ina tusaya in Sebastian uu dhisay mashiin quwadda madfaca ah kaasoo khasnada ku jebin kara 7 ilbiriqsi gudahood. Marka xigta qof kasta wuxuu saacadiisa gacanta ku xiranayaa daqiiqado iyadoo Sebastian iyo Fernando ay bilaabeen inay jebiyaan dhammaan sanduuqyada. Dhanka kale waxaa banaanka bangiga isugu soo baxay ciidamada booliiska, warbaahinta iyo ehelada dadka la afduubtay. Kabtanka booliiska wuxuu la hadlayaa waardiyaha wuxuuna ka war helay xaaladda gudaha. Meel kale iyadoo Fernando iyo Sebastian ay sii wadaan inay furaan sanduuqyada, si lama filaan ah waxay maqleen bilayska oo fuulaya saqafka. Mario ayaa markaa helay wicitaanka kabtanka telefoonka waardiyaha oo uu horay u qaatay. Muuqaalka hore ayaa muujinaya in Fernando uu sidoo kale u diyaar garoobay dhacdadan, sidaas darteed wuxuu Mario ka dhigay inuu barto fanka gorgortanka. Waqti xaadirkan Mario wuxuu la hadlayaa kabtanka wuxuuna ku amray inuu dhammaan ciidamada ka saaro barxadda isagoo ugu hanjabay inuu dili doono dadka rayidka ah. Kabtanku wuu ku qasban yahay laakiin wuxuu si qarsoodi ah ugu soo diray 2 shiishyahan dhismaha deriska ah. Kadib wuxuu weydiiyey Mario wax ku saabsan dalabaadkiisa kadibna wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu la hadlo qareenka degmada. Kabtanku wuxuu aqbalay inuu fuliyo dalabaadkiisa wuxuuna ka codsaday 1 saac oo waqti ah. Dhanka kale Fernando iyo Sebastian waxay horay u fureen sanduuqyo badan iyagoo ka soo saaraya lacag aad u badan, dahab iyo waxyaabo kale oo qaali ah. Dibadda booliisku waxay qiimeynayaan xaaladda. Waxaa jira 2 hab oo kaliya oo lagu geli karo bangiga, in laga galo albaabka weyn iyo goobta baabuurta la dhigto. Si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax war ah oo ku saabsan halka ay joogaan maxaabiista rayidka ah. Waxa kale oo ay ku soo gabagabeeyeen inay tahay uun isku day dhac. Muddo kadib kabtanka ayaa mar kale soo wacay Mario oo ka codsaday inuu isdhiibo. Wuxuu sheegay in tuugada aysan weli cidna wax yeelin, sidaas darteed ay uga bixi doonaan xukun fudud. Kabtanku waxa kale oo uu soo bandhigay inuu u qabanayo qareen.
isaga oo ka jawaabaya Mario wuxuu u sheegay tani inuu kala hadli doono kuwa ku lugta leh. Xilligaas oo dhan Fernando iyo Sebastian waxay jabinayeen sanduuqyo badan iyadoo booliisku ay dibadda ku sugayeen iyagoo aan waxba haysan. Isla markaas telefoonka maxbuus ayaa bilaabay inuu dhawaaqo waxaana la ogaaday inay tahay dhalashadeeda maanta. Mario ayaa markaas u rajaynaya dhalasho farxad leh halka Dibusa uu shukulaato ka soo qaaday maxbuus kale uu siiyey. Shiishahanada ayaa daawanaya iyagoo u dabaaldegaya dhalashada haweeneyda waxayna xogta dib ugu celinayaan kabtanka isagoo la yaabay. Dhanka kale Mario wuu iska sii daynayaa haweeneyda maadaama ay dhalashadeeda tahay hadiyad dhalasho ahaan. Kadib wuxuu ku tiirsanayaa daaqada wuxuuna u sheegay kabtanka inuu 15 sano ku qaatay xabsiga uuna isdhiibi doono oo kaliya haddii loo xaqiijiyo in lagu xukumi doono xukun fudud. Markii uu tan maqlay kabtanka ayaa ku amray shiishahanada inay soo laabtaan. Mariona wuxuu ka fogaaday daaqada. Kadib waxaa la ogaaday inuu tijaabinayay inay booliisku tooganayaan iyo in kale. Dhawaan DA ayaa timid oo la hadlaysa Mario. Waxaa la yaab leh kan dambe wuxuu bilaabay inuu diido inuu la hadlo DA. Mario ayaa markaa dalbaday inuu la hadlo qareenkiisa beddelkiisa. Si kastaba ha ahaatee marka kabtanku uu weydiiyo lambarka qareenka, Mario wuxuu siinayaa telefoon lambarka mid ka mid ah maxaabiista. dabadeed codkiisa ayuu u bedelayaa oo wuxuu ula hadlayaa DA sida qareenkiisa beenta ah. Qorshahan oo kale waxay saaxiibadiisa ka heleen xoogaa kale oo waqti ah. Marka xigto Mario wuxuu isugu geynayaa dhammaan maxaabiista dabaqa koowaad halka Fernando iyo kuwa kale ay ugu dambeyntii bilaabeen inay lacagtoodii dhex mariyaan tunnelka. Mario ayaa markaas damiyay telefoonkiisa gacanta tanina waxay ka dhigaysaa kabtanka inuu ka shakiyo inay dhab ahaantii run ka tahay isdhiibidda. Isla markaas wuxuu arkay godka bulaacadda oo wuxuu ogaaday in tuugadu heleen waddo kale oo ay ka baxsadaan. Dhanka kale kadib markii uu doomaha ku shubtay hantidii, Fernando wuxuu booliiska uga tegay dhammaan hubkii gudaha qolka khasnadda. Muuqaalka hore ayaa ina tusaya in dhammaan hubka uu dhab ahaantii yahay alaabta carruurtu ku ciyaarto, sababtoo ah Fernando ma uusan rabin inuu waxyeeleeyo qof rayid ah. Ugu dambeyntii Mario wuxuu kaga tegayaa maxaabiistii dabaqa koowaad wuxuuna kula biirayaa Fernando qolka yar. Isla markii uu sidaas sameeyo dhammaan maxaabiistii baqayay waxay soo qaateen telefoonadooda oo ay waceen qaraabadooda. Kabtanku waxa kale oo uu ciidan u soo dirayaa bulaacadda halka midka kalena uu hore uga soo duulay bangiga. Fernando iyo Mario waxay si degdeg ah u nadiifiyeen dhammaan cadaymaha tunnelka waxayna ku biireen kuwa kale ee doonta. Muuqaal kale ayaa muujinaya in Fernando uu sidoo kale filayay in booliisku ay heli doonaan bulaacadda. Sidaas darteed waxay hore u dhisteen biyo xireen si ay u kordhiyaan heerka biyaha taasoo u ogolaanaysa inay u socdaan jihada ka soo horjeeda. Meel kale kabtanku wuxuu soo gaarayaa qolka yar iyo ugu dambeyntii daloolka godka halkaasoo bam lagu xiray albaabka. Si kastaba ha ahaatee wuxuu markiiba ogaaday in bamka iyo hubka ay yihiin kuwo been abuur ah. Nasiib daro kabtanku aad ayuu uga soo daahay maadaama tuugadu ay mar hore u suurto gashay inay baxsadaan. Dhanka kale Fernando iyo kooxda ayaa goobta ka baxsaday iyagoo wata gaarigoodii ay sii diyaarsadeen. Kadib waxay aadeen guriga Alberto oo ay si siman hantidii dhexdooda u qaybsadeen. Dhowr bilood ayaa ka soo wareegay. Kooxduna waxay u muuqataa inay ku raaxaysanayaan noloshooda ugu wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee maalin maalmaha ka mid ah Alberto xaaskiisa ayaa qabatay isagoo khiyaamaynaya. Arrintan ayaa aad uga caraysiisay inay ku dacwayso booliiska iyadoo soo bandhigtay inuu ka mid ahaa tuugadii bangiga dhacday. Taasi waxay keentay in mid loo xiro dhammaan tuugada. Muuqaalka waxaan ku aragnaa 7 bilood kadib iyadoo Fernando xabsiga laga sii daayay waxaana ku soo dhaweeyay Mario isagoo saaran gaarigiisa raaxada. Waxaa markaa la ogaaday in Fernando uu sidoo kale ka dambeeyay qorshahan iyaga lagu qabtay. Wuxuu si ula kac ah u soo jeediyay inay adeegsadaan hubka beenta ah si aysan cidna u dhaawicin oo ay uga baxaan xukun maxkamadeed fudud. Fernando iyo kuwa kale waxay sidoo kale helayaan qayb weyn oo hantida ah sababtoo ah bangigu ma hayo diiwaanka lacagta iyo alaabta lagu hayay sanduuqyada khasnadda. Bangigu wuxuu ku qiyaasay in sanduuqyada ay ku jirtay lacag dhan $25 milyan oo isugu jirtay lacag iyo dahab, balse booliisku waxay heleen oo keliya 1.17 milyan iyo 8 kiilogaraam oo dahab ah. Maadaama uusan jirin diiwaan rasmi ah oo ku saabsan alaabta sanduuqyada, booliisku ma aysan dabageli karin kiis adag oo ka dhan ah dambiilayaasha waxayna asal ahaan ku soo dhammaatay salaan diinan, hambalyo iyo farxad. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.